waxaan aad iyo aad halkan aan uga mahadcelinaynaa waxa wasaaradda caafimaadka haddaanay ahayn oo samaysay juhdi zaa'id ah ka hortagga iyo wacyigelinta dadweynaha dhibaato weyn ay ahaan lahayd waxa weeye wasaaradda maaliyaddana waa ay barbar socoto wixii suurtagal ah oo la qaban karo maxaa yeele miisaaniyadda wax baa loogu talagalay laakiin waxaanu lama filaanay ahaayeen sidaa ay tahay haddana casharka aan ka baranno waxay tahay inaanu digniin qabno wax kasta inay dhici karaan dadku waxay aada u jecel yihiin wasaaradu ay ka hadlaan contingency wax la yidhaahdo lama filaan lama filaanku ma aha in kursiyo miis iyo aad u baahato markaas maana lama filaanku waa wax baahi ah oo dhab ah oo jira oo dhibaato keeni kara loogaga hortagaayo insha allah sanadkan waa ka talagalnay contingency waa haysanaa waxaana filaynaa in sidii sanadkii hore u dhacday inaysan dhicin allana inaan barino inuu bahalkaas dib noogu soo noqon waa jiraaba hadda waa waxyaabaa la yidhahdo waa jira ilaahay inuu naga ilaaliyo ku talagalka wasaaraddana contingency ayay leedahay ay ku talagelayso in case wax dhacaan inaanay naqan sidii aan lagu baraarugo markiiba laakiin se waxaan ka digaynaa in hay-aduhu aysan u qaadanin marka la yidhahdo kharash lama filaan ah lama filaanku kursiyo miis marka lala soo booday maane wax culus oo naga hor yimid sida ilaahayna uma keeno cudur fatahaado meelo aan laga filanayn waxyaaba noocaasa in lagu magacayso ku talagalkan waana rajaynaynaa sanadkii hore sanadkan inuu ka fiicnaanayo kii sanadkii hore wax badan aan ka baranay lama filaanka